السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan kusoo guda jirnay zakada, waxaan ka soo baxnay xoolaha iyo dahabka iyo qalinka. Haatan waxaan gudagali doonaa waxa dhulka laga soo saaro. Waxa dhulka laga soo saaro waxay isugu jiraan 3 nooc. Nooca koowaad waxaa la yiraahdaa badarka iyo miraha, sida galayda, qamadiga, bariiska, timirta, zabiibka iyo looska. Midda labaad waa macdanta. Macdanta waxay isugu jirtaa dahabka, qalinka, biraha, almuuniyamka iyo naftada. Nooca saddexaad waa duugaaleedka. Waa dad hore oo gaala ah waxay aasteen oona calaamad gaal ah ku taalo, balse hadday calaamad muslim ku taalo amaba wax calaamad aysan ku oolin, markaas duugaaleed laguma magacaabo ee waxaa la yiraahdaa baadi. Shuruudaha zakada ay ugu waajibayso badarka: 1. In la keydin karo. Haddii aan la keydin karin, sida fawaakihda oo kale, tufaaxa, cambaha, mooska iyo wixii la mid ah, zaka waajib kuma aha. 2. In la beegi karo. Haddii aan la beegi karin, sida qudaarta, koostada iyo ansalaatada iyo wixii la mid ah, zaka waajib kuma aha. Shardiga saddexaad, in ay gaaraan 5 dibirar. Micnaha waa nisaabka badarka iyo miraha ayaa waxa uu yahay 5 dibirar. 5 dibirarna waxaa laga wadaa xilligii hore marka beerta badarka laga soo guro ayaa xoolaha lagu soo xamaali jiray, sida dibiyada. Marka halkii dibi waxaa saaran 60 suus. Sidaas darteed 5 dibi waxa ay sidaan cabirkooda waa 300 oo suus, oo ka dhigan 60 oo lagu dhuftay 5 dibi iyo calaa dibi oo wado 60 suus. Waxaa meesha kaaga muuqanaya qofkii beertiisa ay ka soo go'aan 300 oo suus oo badar ah ama mira ah, waxaa ku waajibtay zako. Xilligan aan hadda taagannahay, cabirka wax lagu cabirto oo ah kiiloogram ahaan, haddii oo loo bedelo 300 oo suus kiiloogram ahaan, waxay noqonaysaa 675 kiiloogram. Gunaanad: qofkii ay beertiisa ay uga soo go'do 300 oo suus amaba 675 kiiloogram oo badar ah ama mira ah, zaka ayaa ku waajibtay. Inta waajibka ah in laga bixiyo badarka iyo miraha waxaa loo kala qaadayaa 2 si. Qaybta koowaad 10% ayaa ku waajibayso in laga bixiyo beerta waraabinteeda qarash badan aan la gelinin, aanna lagu dhibtoonin, sida beerta lagu waraabiyey roobka ama ilo biyoodyo. Qaybta labaad 5% ayaa ku waajibayso in laga bixiyo beerta waraabinteeda qarash badan lagu bixiyey oona lagu dhibtooday, sida ceel in looga soo dhaamiyey amaba webi biyihiisa ayadoo lagu soo xamaalayo xayawaano amaba matoor oo qarash shidaal galay. Waxaana u daliila xadiiskii Jaabir, rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, beerta lagu waraabiyo biyaha roobka ama webiga loo soo jeexay aan qarash matoor ah la gelin ama ilo biyoodyo lagu waraabiyey, waxaa ku waajib ah in laga bixiyo 10% al-cushru. Beerta lagu waraabiyey wadaan, ceel ha looga soo qaado amaba webi oo lagu dhibtooday waraabinteeda oo qarash badanna galay, waxaa ku waajib ah in laga bixiyo 5%. Al-cushru ama 10%, qaabka aad u xisaabinayso waxay noqonaysaa in aad 10 dhig aad u qaybiso, hal qayb aad dhiibto. 10 aad u qaybinaysaa, wixii soo baxa ayaad dhiibaysaa. 5% ama waxa loo yaqaano nisful cushri carabi ahaan, 5% ayada waxay noqonaysaa 10 ayaad u qaybinaysaa, kadibna 2 ayaad u sii qaybinaysaa, wixii soo baxa ayaad dhiibaysaa. Macdanta ayada waxaa la bixinayaa
rubcul cushri boqolkiiba 2.5 dahabka iyo qalinka iyo lacagaha warqadaha ah sida aan ku soo marnay ayay la mid yihiin macdanta. Waxaa la bixinayaa rubcul cushri in 10 loo qaybiyo kadibna 4 loo qaybiyo wixii soo baxana in la bixiyo. Duugaaleedka qofka haddii uu la soo baxo gaalo hore waxay aasteen oo calaamad gaal ahna ay ku taalo, wuxuu bixinayaa zaka ahaan u bixinayaa boqolkiiba 20 ayuu zaka ahaan u bixinayaa, boqolkiiba 80 ka soo harana asaga ayaa iska leh. Waa alqumus ayaa waajib ku ah, waa 5 meelood meel ayuu bixinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan subscribe saar Tarjumaad Channel. Tarjumaad Channel waxyaabaha idiin soo gudbinayo waxaa ka mid ah aqoonta diiniga ah noocyadeeda kala duwan, qisooyinka nebiyada, taariikh nololeedka asxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasallam, xikmado, murti iyo mahmaah iyo halxiraalayaal oo ku qotoma dhaqankeena Soomaaliyeed.